shaqaysiin mar waliba ummadda inaad isku dirtiin ummadda inaad khilaaf ka dhex dhaliseen maanta aad baan idin salaamayaa ummadda walaalahay islaamka ah meel walba joogaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan aad baan u salaamayaa ummad walba Soomaaliyeed oo maanta muuqaalka aad baan salaamayaa ummad walba oo maanta Ilaahay nabad ku sugay igana aad baan salaamayaa waxaan leeyahay Ilaahay nabad ay ku wado laakiin ummadda maanta dhibkaas arkaysan ku jira maanta horta wallahi waxaan aad uga xumahay maanta inay Soomaaliyeed duwayaan ummadda Soomaaliyeed joogta maanta aad baan salaamayaa hooyo aysan maqasheen wiil dhalinyaro oo maanta Ilaahay ka siiyay aqoon siiyay oo wadankiisa dhexdeeda ku ciilan oo maanta fariintii ugu dambeysay soo diray oo nolosha xataa rajaan kale madarkiisa waxa weeye waxaan idin sheegayaa horta maanta xalayba ilaa hadda aan dibadda ugu socotaa waxay leeyihiin heestaas soo qaatay waxay noqonaysaa ugu dambeysay waxay leeyihiin hees aad qaado heestaas ugu dambeysay noqonay kamana dambeynayso aniga cabsi hadda ka qabo maaha waxay hadda idinka live idinku soo galay ama maaha cabsi aan iyaga ka qabo waxaan live idinku soo galay live waxaan idinku soo galay waxay tahay qof walba xaqiiqada ka hadla iyo runta ka hadla waxaas oo dambeynaya hadda maanta Fuad xal ku jiro dadkiisii laakiin Fuad waxaan aaminsanahay inuu nin ragaya waxaan aaminsanahay inuu yahay nin ka hadlaya xaqiiqada aadanigu maanta ku jirtay walaalayo waxa weeye Fuad oo kaliya maaha ma leedin tigay intii gees maanta dhulkeena ka baxay maanta inta wadankeena gees ka tagtay maanta Fuad oo kaliya maaha intii badneed oo dhanba horta lagu diray imisa gees baa idinku taagan horta lagu diray oo ka hadlay oo ka aamusteen oo maanta dadkii ka haray agoomihii maanta ay wadankii joogaan ay sicil iyo oohin ay ku nool yihiin iyagoo laga dilay geesyadii dhalay ay haddana ku nool yihiin nolol aan maanta nolol lahayn oo leed lahayn oo biyo lahayn oo mishaar lahayn oo shaqo lahayn waxaan idin sheegayaa markaa kuwan soo hanjabay maanta micnihii maslaxo wax walba aragtood ka heestay waxaan ku ballan qaaday inay noqoto heesta ugu dambeysay waxaan u sheegay kuwan micnihii maslaxo heestan aad soo qaaday waxay ku noqonaysaa heesta ugu dambeysay waxaan aaminsanahay anigu mataqaanaa anigu inaan heeso ma joogo inaan xaqiiqada sheegan u joogaa waxaan u sheegayaa saralaado xogaa codka waxa iga waxaa ku yarjiray waxaan u sheegayaa kuwan maanta ile maslaxow heesta aan maanta soo qaaday waxaad ismuudaysaa inaad adigu wax qaban karaysa laakiin waxaan ku ballan qaadaynaa inay noqoto heestan heestaada ugu dambeysay waxaan u sheegayaa kuwaasi inay yihiin dad liita oo bila awooda sababtoo ah waxaa weeye anigu xaqiiqadan ka heesay weligiina xaqiiqadan keesi jiray runtaan keesi jiray ama dadkaan u heliyaa walaalahay baan u heliyaa de kolley buu hore waan ogaa inaad yihiin dad rajiima oo dad cuna ah oo annaga maaha cid kale inay nuulaan isku dhaqmayna inaad tihiin oo iska oga waxaa weeye kamana qoomameynaya anigu heestaa maqalkay u qaaday walaalkayo dhiban ayaan heestaasna maanta aan ku casuumay oon xaqiisa ugu raadinaya walaalkayo dhiban hadalkii uu shacibka u gaarsiin lahaa in anigu gaarsiiyey kacabsiin iyo hanjabaad iyo waxaas haddana anigu u joojinay marka horeba ma soo hayseeno dee nin cabsi ku jirta haddaan ahay marka horeba ma soo haysen waxaan idiin sheegayaa laakiin maanta waan heysay berrina waan heysay saadana waan heysay ilaa intay nolosha ugu jirtana waan heysay runtana waan ka heysay walaalkayga dhabanna waan u heelinayaa waxaan u sheegayaa anigii maanta xaggaa joogay baa durba laysoo hanjabaad leeyahay adaa u maqan heestaas heestaa kama dambeynay sideed waa kuusoo soconnaa waxaan markaa bal ka warrama xaaladday ku jiraan dhalinyartii walaalihiin ahaa ee diidiyey ee maanta walaalkay Fuad Yuusuf ee Durman xaqooyisa u soo baxay inay maanta banaanka keenan ee laamiyada soo istaagay maxaa u dambeyn doona see loo yeeli doona war waad ogtihiin dadkaygan sheegaya dadkayga banaan baxaya
way og yihiin dadkan waxa ay samayn doonaan haddaad qabootisaan oo maanta waxaasi aad ka aamustaan ood arrinkaasi sidaasi aad ku gabagabaysaan waad ogtihiin nin walba wallaahi oo billaahi inaa gurigiisa waa u imaanaya anigoo xagga maanta dirraba jooga jirba lay leeyahay maslixi waa kuusa soconaa haddana laysa socday ninga maxay dambe kuwii meesha joogay ee banaanbaxay ee runta sheegay waxaa u dambeeyay sheegay war ilaahay baa ilaahay waxaa weeye dee fuaad ma ka fiican anu fuaad ma fiicin fuaad kuma fiicniyo fuaad baa runtuu sheego maanta xagaas ku sugan yahay maanta fuaad waa kaa iminkana waxay leeyihiin kuusa soconaa soo ma dee berna waa saa damaa waa iyaga saakuuntana waa kuuka sidaas unbaa loo buro sidaas unbaa هذه والله إن روح عبسي إن روح عبسي ليش وصيي إني كلا قبل أنا رنت بلا بيا أنا شيء وراني قلت شو بس بلا دعسين ودكتي نسوتي ليه شعرك يجي متواجد عليه لكن إذنكم سيدا أنا كنتين أول بابي بروتة مروتي ما تسلوي ما حد يسمع يا ما تسلوي عبسي عبسي ورح جبت أسيسي ما هني كاروين سوق حيست كاروين تنوع دمار فؤاد كبر دمينا فؤاد هو لالك يقول يجيب جيسن ولي بارو هاي سن مقاطع نين يجيب جيسن أو إدين كسر دعويج أو سكين دعوي فلي بس وصل يا رمي فلي هو كوسا يا نين رجع صار لوجه وما قرنسين بولشة صار لوقع عين ما قرنسين حب تقارن ناس تحب بنتي ناس تحب بنتي يا إلا تحب بنتي متى waxaan u hambaleynayaa qof walba maanta ka diidiyay xaqiiqadiina iyo dadcina waraabinimadiina cid walba oo ogaatiruntiina maanta ka dhigay ayaan ku faraxsanahay laakiin xabadna ku lugsanahay aad baan xabad ugu murugaysanay waxaan ugu murugaysanay hawlaalahay maanta iyagoo soo dareeray oo walaalkooda garab siiyaan soo dareeray haddii aad walaalkiin heli weydaan hataa saa ku hamustan midkiin dad damiir lama tihiin dad lagu tashaday lama tihiin nin walba oo geesiya oo idinka dhashay waa la xasan gaboodna ka dambe la geysan waxaan sheegayaa waqti inuu dhamaaday waxaan u hambaleynayaa siduu walaalkay u ballan qaaday oo culamada uga hadlay culamadaasi arrinkaas ummadda dhibban ha ka hadasho iyo say uga soo hadleen horta aad baan ugu faraxsanahay aad baan uga mahadcelinayaa ilaahay abaalkiina bidaayga jazaakum allah ilaahay khayr naga siiyo xaqiiqada laga marka hore diintu waa cadaalad diintu waa xaqiiqo diintu waa walaalnimo diintu waa ehelnimo diintu waa heel iyo garab wadarkasta maanta ummadina xawla gelino dee marba haddaad ihin dhibteen waan ogeynaa soo socotaa kaale oo maxaad u samaynaysaa maxaad awoodin inaad u samaynaysaa ya ha heesi runta ha sheegin taasi geesidii hore naga dhashay kuwaad kuma dhisan unbay soo ma anna waan xaan kuyi soo ma soo socotay maksoo inay kaa si fiican baan kusoo dhaweynayaa roog baan kusoo dhaweynayaa roog casaan weliba waxaa samaysan arki doona insha allah laakiin se mid baan idiin sheegaya walaalkii fuaad haddii aad soo deegaya seedi ku dhacda adeero nugu kana u dhacda inaga shaqeynay kana waa blow walaalkii fuaad baan u baahannahay danteenu way garanaysay danteenu intay isbedelin ay afaara waaweyn gelin ay hawada ka bixin oo lagu yaabin fuaad baan u baahanay sooda waa sooda
soo dhawaada horta maanta aad baan idin salaamaya ummadda walaalahay islaamka ah meel walba joogaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan aad baan u salaamaya ummad walba Soomaaliyeed oo maanta muuqaalka aad baan salaamaya ummad walba oo maanta Ilaahay nabad ku sugay iyagana aad baan salaamaya waxaan leeyahay Ilaahay nabad ay ku wado laakiin ummadayda maanta dhibkaas arkaysan aad ku jira maanta horta wallahi waxaan aad uga xumahay maanta inay Soomaaliyeed yihiin ummadda Soomaaliyeed joogta maanta aad baan salaamaya hooyo aysan maqasheen wiil dhalinyaro oo maanta Ilaahay ka siiyay aqoon siiyay oo wadankiisa dhexdeeda ku ciilan oo maanta fariintii ugu dambeysay soo diray oo nolosha xataa rajaan kale madarkiisa waxa weeye waxaan idin sheegay horta maanta xalayba ilaa hadda aan dibadda ugu socotaa waxay leeyihiin heestaas soo qaaday waxay noqonaysaa ugu dambeysay waxay leeyihiin hees aad qaado heestaas ugu dambeysay noqon kamana dambeynayso anigu cabsi halkaa ka qabo maaha waxay hadda idinka life idin kusoo galay ama maaha cabsi aan iyaga ka qabo waxaan life idin kusoo galay life waxaan idin kusoo galay waxay tahay qof walba xaqiiqada ka hadla iyo runta ka hadla waxaas oo dambeynaya hadda maanta Fuad xal ku jiro dadkiisin laakiin Fuad waxaan aaminsanahay inuu nin ragaya waxaan aaminsanahay inuu yahay nin ka hadlaya xaqiiqada aadanigu maanta ku jirtay walaalayo waxa weeye Fuad oo kaliya ma leedin tiriyay intii geesi maanta dhulkeena ka baxday maanta inta wadankeena geesi ka tagtay maanta Fuad oo kaliya ma intii badneeyo dhanba horta lagu dilay imisa geesi baa idinku taagan horta lagu dilay oo ka hadlay oo ka aamusteen oo maanta dadkii ka haray agoomihii maanta ay wadankii joogaan ay sicil iyo oohin ay ku nool yihiin iyagoo laga dilay geesiyadii dhalay ay haddana ku nool yihiin nolol aan maanta nool lahayn oo leed lahayn oo biyo lahayn oo mishaar lahayn oo shaqo lahayn waxaan idin sheegayaa markaa kuwan soo hanjabay ee maanta micnihii maslaxo wax walba aragtood ka heestaay waxaan ku ballan qaaday inay noqoto heesta ugu dambeysay waxaan u sheegay kuwan ilaa micnihii maslaxo heestan aad soo qaaday waxay ku noqonaysaa heesta ugu dambeysay waxaan aaminsanahay anigu mataqaanaaye anigu inaan heeso ma joogo inaan xaqiiqada sheegan u joogaa waxaan u sheegayaa sharalaado xoogaa codka waxa iga waxbaa ku yarjiray waxaan u sheegayaa kuwan maanta ile maslaxow heesta aan maanta soo qaaday waxaad ismuudaysaa inaad adigu wax qaban karaysa laakiin waxaan ku ballan qaadaynaa inay noqoto heestaada ugu dambeysay waxaan u sheegayaa kuwaasi inay yihiin dad liita oo bila awooda sababtoo ah waxaa weeye anigu xaqiiqadan ka heesay weligiina xaqiiqadan keesi jiray runtaan keesi jiray ama dadkaan u heliyaa walaalahay baan u heliyaa de kolley buu hore waan ogaa inaad yihiin dad rajiima oo dad cuna ah oo annaga maaha cid kale inay nuulaan isku dhaqmayna inaad tihiin oo isku oga waxaa weeye kamana qoomameynaya anigu heestaan malkay u qaaday walaalkayo dhiban ayaan heestaasna maanta aan ku casuumay oon xaqiisa ugu raadinaya walaalkayo dhiban hadalkii uu shacibka u gaarsiin lahaa in anigu gaarsiiyey kacabsiin iyo hanjabaad iyo waxaas haddana anigu u joojinayo marka horeba ma soo heyseenoo dee nin cabsi ku jirta haddaan ahay marka horeba ma soo heyseen waxaan idiin sheegayaa laakiin maanta waan heysay berrina waan heysay saadana waan heysay ilaa intay nolosha ugu joogtana waan heysay runtana waan ka heysay walaalkayga dhabanna waan u heelinayaa waxaan u sheegayaa anigii maanta xaggaa joogay baa durba laysoo hanjabaa leeyahay adaa u maqan heestaas heestaa kama dambeynay sidee waa kuusoo soconnaa waxaan markaa bal ka warrama xaaladday ku jiraan dhalinyartii walaalihiin ahaa ee diidiyey ee maanta walaalkay Fuad Yuusuf ee dulman xaqiisa u soo baxay inay maanta banaanka keenan ee laamiyada soo istaagay maxaa u dambeyn doona see loo yeeli doona war waad ogtihiin dadkaygan sheegaya dadkayga banaan baxaya way og yihiin dadkan waxa ay samayn doonaan haddaad qabootisaan oo maanta waxaasi aad ka aamustaan oo arrinkaasi sidaasi aad ku gabagabaysaan waad ogtihiin nin walba wallaahi oo billaahi inaa gurigiisa loogu imaanayo anigoo xagga maanta dirraba jooga jirba lay leeyahay maslaxo waa kuusa soconaa haddana laysa socday ninga maxay dambe kuwii meesha joogay ee banaan baxay ee runta sheegay waxaa u dambeeyay sheegay war ilaahay baa ilaahay waxaa weeye dee Fuad ma ka fiican anu Fuad ma fiican
فؤاد كما في يعني فؤاد رنتو شيء ما تحرس كسويني أي ما أنت فؤاد بكا إيه مثلا حليه هنا خصوصا عنا سما تبرنا وعلي صار دما ويا ساكون هنا فوق سدا سما الله برا سدا سما هذه والله إن روح عبسي إن روح عبسي هذا صار شيء إيه مثلا قبل أنا رنت بلا يعني شيء وراني قلت شو بس بلا دعسون بدك نسوتي ليه شعرك يجي متواجد عليه لكن إذنكم سيدا لا دقنتين عدو البابي بروتين مروتي ما تسلولي واحد اسمه يا ما تسلولي عبسي وراح جبت أسيسي ما هنا كاروين صوت حس كاروين تنوى دمار فؤاد كبرت بينهم فؤاد هو لالك يقول يجيب جيسي ولي بعرف وهي اسمه مقاطع نين يجيب جيسي أو يديك كسر دعويت أو سكين دعوي فلي بس وصل يا رمي فلي هو كوسان يا نين رجع صار له وجوه ما قدرنا نسين بالشيء صار له قنعي ما قدرنا نسين حب تقعنا ناس تحب بنتي ناس تحب بنتي يا إذا تحب بنتي متى waxaan u hambaleynayaa qof walba maanta ka dhiibiyay xaqiiqadiina iyo dadbanaad waraabinimadiina cid walba oo ogaatay runtiina maanta ka dhigay ayaan ku faraxsanahay laakiin xabadna ku lugsanahay aad baan xabad ugu lugsanahay waxaan ugu lugsanahay walaalahay maanta iyagoo soo dareeray oo walaalkooda garab siiyaan soo dareeray haddii aad walaalkiin heli weydaan hataa saa ku hamustan ma tihiin dad damiir lama tihiin dad lagu tashay lama tihiin nin walba oo geesiya oo idinka dhashay waa la xasan gabadna marka dambe la geysan waxaan sheegayaa waqti inuu dhamaaday waxaan u hambaleynayaa siduu walaalkay u ballan qaaday oo culamada uga hadlay culimadaasi arrinkaas ummadda dhibban ha ka hadasho iyo say uga soo hadleen horta aad baan ugu faraxsanahay aad baan uga mahadcelinayaa ilaahay abaalkiina jazaakum allah ilaahay khayr naga siiyo xaqiiqada laga marka hore diintu waa cadaalad diintu waa xaqiiqo diintu waa walaalnimo diintu waa ehelnimo diintu waa heel iyo garab wadarkasta maanta ummadina xawda biniyo marba haddaad ihin dibteen waan ogeynaa soo socotaan kaalay oo maxaad u samaynaysaa maxaad awoodin inaad u samaynaysaa ya ha heesi runta ha sheegin taasi geesidii hore naga dhashay kuwaad kuma dhisan unbay soo ma anna waan xaan kuyi soo ma soo socotay maqsuud inay kaa si fiican baan kusoo dhaweynayaa roog baan kusoo dhaweynayaa roog casaan weliba waxaa samaysan arki doona insha allah laakiin se mid baan idiin sheegaya walaalkii fu'aad haddii aad soo deegaya teeni ku dhacda adeero nugu tani u dhacda inay ashigeen tani waa blow walaalkii fu'aad baan u baahannahay dantiina waa gelinaysa danteenu intay isbedelin ay afaara waaweyn gelin ay hawada ka bixin oo lagu yaabin fu'aad baan u baahanay sooda waa sooda maanta aad baan idin salaamayaa ummadda walaalahay islaamka ah meel walba joogaan ummadda soomaaliyeed meel walba joogaan aad baan too salaamayaa ummad walba soomaaliyeed oo maanta muuqaalka aad ku doonta aad baan salaamayaa ummad walba oo maanta ilaahay nabad ku sugay iyagana aad baan salaamayaa waxaan leeyahay ilaahay nabadda idinku wado laakiin ummadda sida ummaddeeda maanta dhibkaas arkaysaan aad ku jira maanta horta wallaahi waxaan aad uga xumahay maanta inay Soomaaliyeed
ummadda Soomaaliyeed joogta maanta aad baan u salaamaya. hooyo aysan maqasheen wiil dhalinyaro oo maanta ilaahay karti siiyay aqoon siiyay oo wadankiisii dhexdeeda ku ciilan oo maanta fariintii ugu dambeysay soo diray oo nolosha xataa rajaan ka leeyahay dadkiisa. waxa weeye waxaan idin sheegay horta maanta xalayba ilaa iyo hadda hanjabada ugu socotaa waxay leeyihiin heestaas soo qaaday waxay noqonaysaa ugu dambeysay. waxay leeyihiin hees aad qaado heestaad ugu dambeysay bay noqonay kamana dambeynaysa. anigu cabsi hataa ka qabo maaha waxay hadda idinka life idin kusoo galay ama maaha cabsi aan iyaga ka qabo waxaan life idin kusoo galay. life waxaan idin kusoo galay waxay tahay qof walba xaqiiqada ka hadla iyo runta ka hadla waxaas u dambeynaya. hadda maanta Fuad xal ku jiro dadkiisiin laakiin Fuad waxaan aaminsanahay inuu nin ragaya waxaan aaminsanahay inuu yahay nin ka hadlaya xaqiiqada aadanigu maanta ku jirtay walaalayo. waxa weeye Fuad oo kaliya maaha ma leedin tiri intii geesi maanta dhulkeena ka baxday maanta inta wadankeena geesi ka tagtay maanta Fuad oo kaliya maaha intii badneed oo dhanba waqti lagu jiray imisa geesi baa idinku taagan waqti lagu jiray ood ka hadlay ood ka aamusteen oo maanta dadkii ka haray agoomihii maanta ay wadankii joogaan ay si ciil iyo oohin ay ku nool yihiin iyagoo laga dilay geesiyadii dhalay ay haddana ku nool yihiin nolol aan maanta nolol lahayn oo leed lahayn oo biyo lahayn oo mishaar lahayn oo shaqo lahayn. waxaan idiin sheegayaa markaa kuwan soo hanjabaya maanta micnihii maslaxow wax walba aragtood ka haystaay waxaan ku ballan qaaday inay noqoto heesta ugu dambeysay. waxaan u sheegaya kuwan ilaa micnihii maslaxow heestan aad soo qaaday waxay ku noqonaysaa heesta ugu dambeysay. waxaan aaminsanahay anigu mataqaanaaye anigu inaan heeso ma joogo ee inaan xaqiiqada sheegan u joogaa. waxaan u joogaa waxaan u sheegayaa saralaado xoogaa codka waxaa iga waxbaa ku yar jiray. waxaan u sheegayaa kuwan maanta idinle maslaxow heesta aad maanta soo qaaday waxaad ismoodaysaa inaad adigu wax qaban karaysa laakiin waxaan ku ballan qaadaynaa inay noqoto heestan heestaada ugu dambeysay. waxaan u sheegayaa kuwaasi inay yihiin dad liita oo bila awooda sababtoo ah waxaa weeye anigu xaqiiqadan ka heesay weligiina xaqiiqadan keesi jiray runtaan keesi jiray ama dadkaan u heliyaa walaalahay baan u heliyaa. de kolley buu hore waan ogaa inaad yihiin dad rajiima oo dad cuno ah oo annaga maaha cid kale inay nuulaan isku dhaqmayna inaad tihiin oo isku oga. waxaa weeye kamana qoomameynaya anigu heestaan walaalkay u qaaday walaalkayo dhiban ayaan heestaasna maanta aan ku casuumay oon xaqiisa ugu raadinaya. walaalkayo dhiban hadalkii uu shacibka u gaarsiin lahaa in anigu gaarsiiyey kacabsiin iyo hanjabaad iyo waxaas haddana anigu u joojinayo marka horeba ma soo haysan dee nin cabsi ku jirta haddaan ahay marka horeba ma soo haysan. waxaan idiin sheegayaa laakiin maanta waan haysi berina waan haysi saadama waan haysi ilaa intay nolosha ugu jirtana waan haysi runtana waan ka haysi walaalkayga dhibanna waan u helinaya. waxaan u sheegayaa anigii maanta xaggaa joogay baa durba laysoo hanjabaa leeyahay adaa u maqan heestaas heestaa kama dambeyn sideed waa kuusoo soconnaa. waxaan markaa bal ka warrama xaaladday ku jiraan dhalinyartii walaalihiin ahaa ee diidiyey ee maanta walaalkay Fuad Yuusuf ee dulman xaqiisa u soo baxay inay maanta banaanka keenaan ee laamiyada soo istaagay maxaa u dambeyn doona see loo yeeli doonaa. war waad ogtihiin dadkaygan sheegaya dadkayga banaan baxaya way og yihiin dadkan waxa ay samayn doonaan haddaad qabootisaan oo maanta waxaasi aad ka aamustaan ood arrinkaasi sidaasi aad ku gabagabaysaan waad ogtihiin nin walba wallaahi oo billaahi inaa gurigiisa waa u imaanaya. anigoo xagga maanta dirraba jooga durba lay leeyahay maslaxo waa kuusa soconaa. haddii aniga laysa socday ninga maxay ni dambeey kuwii meesha joogay ee banaan baxay ee runta sheegay waxaa u dambeeyay sheegay war ilaahay baa ilaahay waxaa weeye dee Fuad ma ka fiican anu Fuad ma fiican Fuad kuma fiicniyo Fuad runtuu sheego maanta xagaas ku sugan yahay maanta Fuad waka imikana waxay leeyihiin kuusa soconaa soo ma dee birna waa saa damaa waa iyaga saakuuntana waa kuwa sidaas unbaa loo buro sidaas unbaa هذه والله إن روح عبسي وجدت إن روح عبسي ليش تصير إيمي كلا قبل الله أنا رنت بلا بيا عن شيء وراني قلت شو بس هذا لا عشان بدوتي مسوتي له شعرك يجي متواتر عليه لكن إذنكم سيدا لا كنتين عدل بابي قلت
ملوتي ما تسلودي واحد اسمه يا ما تسلودي عبسي وراح جبت أسيسي ما هني كاروين سوق حاسة كاروين تنوع دمار فؤاد كبرت بينهم فؤاد هو لالك يقول يجيب جيسين ولي بأنا وهي سمع قاضي نين يجيب جيسين أو يدين كسر دعويت أو سكين دعوي فلي بس وصل غير ميت فلي هو كوسان يا نين رجع سل لو شو ما قرن نسيم بالشيء سل واقع عين ما قرن نسيم حب تقارن ناس تحب بنتي يا إذا تحب بنتي متى waxaan u hambaleynayaa qof walba maanta ka dhiibiyay xaqiiqadiina iyo dadcina waraabinimadiina cid walba oo ogaatay runtiina maanta oo ka dhigay ayaan ku faraxsanahay laakiin xabad baan ku lugeysanahay aad baan xabad ugu lugeysanahay waxaan ugu lugeysanahay waa walaalahay maanta iyagoo soo dareeray oo walaalkooda garab siiyaan soo dareeray haddii aad walaalkiin heli weydaan hadda saa ku hamustan matihiin dad damiir lama tihiin dad lagu tashaday lama tihiin nin walba oo geesiya oo idinka dhashay waa la xasan gaboodna ka dambe la geysan waxaan sheegayaa waqti inuu dhamaaday waxaan u hambaleynayaa siduu walaalkay u ballan qaaday oo culamada uga hadlay culamadaasi arrinkaas ummadda dhibban ha ka hadasho iyo say uga soo hadleen aad baan u faraxsanahay aad baan uga mahadcelinayaa ilaahay abaalkiina jazaakum allah ilaahay khayr naga siiyo xaqiiqada laga marka hore diintu waa cadaalad diintu waa xaqiiqo diintu waa walaalnimo diintu waa ehelnimo diintu waa heel iyo garab wadaadka maanta ummadina xagga biniyo marba haddii ay hindibteen waan ogeynaa soo socotaan kaale oo maxaad u samaynaysaa maxaad awoodin inaad u samaynaysaa ya ha heesi runta ha sheegi kaasibati geesidii hore naga dhashay kuwaad kuma dhisan bay soo anoo waxaan ku soo socotay maqsuud inay ka si fiican oo ku soo dhigaya roobka ku soo dhigaya roob casaan waliba waxa sameysan arki doon insha Allah laakiin si midna idin sheegaya walaalkii Fuad haddii aad soo dhigaya tiin ku dhacda adeero nuu kan u dhacday inay shaqeeyeen kan waa blow walaalkii Fuad baan u baahanahay dantiina oo galmaysa dantiina intii isbedelin ay afaara waaweyn gelin ay hawada ka bixin oo lagu yaabin Fuad baan u baahanay sooda waa sooda maanta aad baan idin salaamayaa ummadda walaalahay islaamka ah meel walba joogaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogaan aad baan u salaamayaa ummad walba Soomaaliyeed oo maanta maqalka aad baan salaamayaa ummad walba oo maanta Ilaahay nabad ku sugay iyagana aad baan salaamayaa waxaan leeyahay Ilaahay nabad ay ku wado laakiin ummadda Soomaaliyeed maanta dhibkaas arkaysan aad ku jira maanta horta wallahi waxaan aad uga xumahay maanta inay Soomaaliyeed duwaan ummadda Soomaaliyeed joogta maanta aad baan salaamayaa hooyo aysan maqasheen wiil dhalinyaro oo maanta Ilaahay ka siiyay aqoon siiyay oo wadankiisa dhexdeeda ku ciilan oo maanta fariinta ugu dambeysay soo diray oo nolosha xitaa rajaan kale madarkiisa waxa weeye waxaan idin sheegayaa horta maanta xaalayda ilaa hadda